maalintii dhulka laydinku leeyihiin ee aan qaxdeen ee dulcadiiqa iyo qaxootiga joogteen haddii inta qabaa'il kale ama dowlado kale ama yuhuud ama cid kale inta lasoo raro burciya hargeysiya berberiya inta lamida la dejiyo muuqaalka sidaad ka daawadeen waa sheekh mustafa islamarkaana uu diiday gebi ahaanba ictiraafka israa'iil ay siisay somalilan isagoona u sheegay reer somalilan intana ay tahay xaqdaro islamarkaana marnaba uusan ogolaan doonin sheekh mustafa xaaji ismaaciil haaruun isagoo ka waaniyey una sheegay reer somalilan inay ka toobad keenaan ficilkii xumaa oo ay sameeyeen haddii la idin gumaysase ma ahayn buu ku yidhi inaad sameysaan dhaqamada foosha xume islamarkaana yahuudda aada heshiis aada la gashaan. dhinacan kale muwaadinkan oo reer somalilanka wuxuu si toosa u aflagaadeynayaa sheekha isagoo yidhi sheikhu wuxuu kasoo horjeedaa aqoonsiga somalilan waxayse ninkan iyo kuwo badan oo lamid ah waxay soo jeediyeen in gebi ahaanba xabsiga loo taxaabo sheekh mustafa xaaji ismaaciil haaruun uuna ka mid yahay culummada kuwa ugu waaweyn amaba saameynta xoogan ku leh geyga soomaalida iyo guud ahaan adduunka isagoona sheegay in la joogo waqtigii la xiri lahaa sheekh mustafa xaaji ismaaciil haaruun islamarkaana uu ku yahay cadow. dad badan reer somalilan ah ayaa si xun u faafiyey khudbadii jimcaha sheekh mustafa xaaji ismaaciil haaruun uu kaga jeediyey mid ka mid ah masaajidada ku yaala caasimada hargeysa ee somalilan isagoo ka hadlay dhibaatada ee ka jirtay halkaasi iyo aqoonsiga yahuudda ay siisay somalilan dadkiisuna u sheegay una digay inay ka digtoonaadaan islamarkaana ilaahay ay u laabtaan. mid ka mid ah tusaalooyinka ugu muhiimsan ayuu ku sheegay islamarkaana ay ahaayeen in reer somalilan ay sheegeen in xilligii nabiga caleyhi salaatu wasalaam oo heshiis uu la galay ee yahuudda taasoo ay ku sheegeen in iyaguna heshiis ay la geli karaan ee yahuudda islamarkaana wax u diidaya aysan jirin. laakiin sheekh mustafa xaaji ismaaciil haaruun isagoo kasii hadlaya ku duulaya hadalkaasi buu sheegay in nabiga caleyhi salaatu wasalaam uu heshiiska uu la galay yahuuddaasi ay ahaayeen kuwo isaga ku hoos nool ee ma ahayn yahuud uu nabiga oo isagu uu ku hoos nool yahay laakiin yahuudda ayay ku hoos noolaayeen ee nabiga caleyhi salaatu wasalaam hooskiisa. deetana waxayse la galeen heshiis iyagii ugu dambeyntiina ee ka baxay dhammaan heshiisyadii laga galay xitaa nabiga caleyhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisaba hal ahdi oo ay la galeen kama aysan bixin. haddaba sheekh mustafa wuxuu ka waaniyey reer somalilan in yahuuddan ay ka daran yihiin weliba kuwanna ay yihiin sahyoonida islamarkaana ay ka daran yihiin kuwaasi oo heshiisyadii hore sidai ay ugu baxeen si ka daran inay ugu sii bixi doonaan isagoona u sheegay in loo baahan yahay madaxweynaha somalilan cabdiraxmaan ciro inuu gaaro toobo degdega islamarkaana ilaahay dib uu ugu laabto. hadalkan ayaa qabsaday baraha bulshada 48 saacadood ee ugu dambeysay si aada ayuu ugu faafay baraha bulshada iyadoo dad badan isla dhexmarayaan fariimo kala duwan iyo noocyo kala duwan islamarkaana ay ku sheegayaan in tani aysan ahayn wax suuragal ah iyo waxayse kale sheegay reer somalilan inay tahay in lasoo xiro gebi ahaanba sheekh mustafa xaaji ismaaciil haaruun islamarkaana loo taxaabo xabsiga iyagoona sheegay inaan sheekha sidaas laga doonaynin inuu gebi ahaanba uu sameeyo tanina ay fadeexad ay ku tahay reer somalilan in qof ka hadlaya diin iyo arrimo qusaysan la mid ah uu ku dhex joogo amaba uu sii dhex joogo gudaha caasimada ee somalilan ee hargeysa iyagoona sheegay inaanu marnaba suuragal ahayn in lagu sii arko ee halkaasi hargeysa loona baahan yahay in laga tarxiilo sheekh mustafa xaaji ismaaciil haaruun islamarkaana xisaabtan adag la marsiiyo si wax looga qabto arrimahan ee halkaasi ka jira. sheekh mustafa xaaji ismaaciil haaruun ayaa carabka ku adkeeyey khudbadii jimcaha inaysan marnaba la aqbali doonin islamarkaana la iska dulqaado ee gumaysiga oo yahuudda ay ku heyso dadka islaamka isagoona sheegay in waxa ka socda ee khaza iyo si lamid ah guud ahaan dunida islaamka ay yihiin wax lagu tusaale qaato laakiin imika in yahuud dalka la keeno aysan ahayn wax marnaba soconaysa amaba cuntumaysa isagoo gebi ahaanba si rasmi ah si toosba u qaadacay aqoonsiga israa'iil ay siisay. wuxuu sheegay in loo baahan yahay in heegan buuxa la galo islamarkaana laga hor yimaado aqoonsigan oo yahuudda ay sheegtay inay siisay somalilan. fariimo kala duwan ayuu u diray shacabka islamarkaana uu ka waaniyey
dhammaan dhibaatada halkaasi ka taagan isagoona u sheegay in loo baahan yahay in arrimahaasi lagu digtoonaado gebi ahaanba. mar kale aynu ku celino khudbadda sheekha iyo inankan yari isla markaana ismahadiyey oo u sacabtumaya yahuudda hadalku ku dhawaaqayo. maalintii dhulka laydinku leeyihiin ee aan qaxdeen ee dulcadii ayaa qaxootiga joogtay, haddii inta qabaa'il kale ama dowlado kale ama yahuud ama cid kale inta la soo raro gurciya hargeysiya berberiya inta lamida la dejiyo oo aadna weli aad rafani soo dagaalamaysid, ninka yidhaahdaa kuwaana soo raray meesha la dejiyey xaq bay u leeyihiin waa dowlado waa rumaysanay, maxaad ka rumaysnaa lahayd adigu? hadalku ku dhawaaqay. aad baan idiin salaamayaa fiidiyowga hala sheer garay meel dheerna laga turo. waxaan doonayaa inaan ka hadlo nimankan khudbadda jimcaha masaajidada ka hadla ee waxa weeye sacuudigu ka dhex hadlayo. horta sidaynu wada ognahay sacuudigu lacag malaayiin dollar isagoo ku bixinaya inuu arrinka Somaliland iyo Israa'iil dimeeyay. marka kulli rad badan oo ka dhex hadlayo ayaa meelaha aynu ku arkaynaa. marka waxa weeye intii si sharci wax looga qaban karayna waa looga qabanaya, inta kalena halkoodeen runta ugu sheegina. dabcan waxaad mar kale daawateen hadalada Sheekh Mustafa oo si aad ugu wacdiyay bulshada iyo inanka yari oo isla markaana aflagaadeynaya sheekha sharafkiisana meel ugu dhacaya. Sheekh Mustafa Xaaji Ismaaciil Haaruun waa aqoon-yahan Soomaaliyeed iyo si lamid ah culamaadiinka kuwooda ugu wanaagsan ee ka hadla dhanka akhlaaqda wanaagsan, horumarka, adeegyada bulshada iyo wax kastoo asaasiga bulshada u ah, isagoo dhinac kalena oo ka hadlaya cilmi aqoon kala duwan isla markaana qoseeya sida sayniska iyo waxyaalaha kale ee la midka loo baahan yahay in bulshadu ay isku tarbiyeeyaan. waxyaalaha ugu muhiimsanna ay tahay akhlaaqiyaadka muslimka iyo horumarka isla markaana uu yahay dhiirigeliye ayaase ku adkeeyay carabkiisa in marraba aan la aqbali karin aqoonsiga yahuudda ay siisay Somaliland, isagoona u sheegay in loo baahan yahay in si rasmi ah loo waana qaato isla markaana lagu hor yimaado gebi ahaanba aqoonsigan ay Israa'iil ay siisay Somaliland. inanka yarina isaguna wuxuu sheegay in loo baahay in inay tahay waqtigii rasmiga ee loo baahnaa in la soo xiro sheekha isla markaana marraba aan la aqbali doonin gebi ahaanba. waxa uu sheekhu ka dhawaajiyay weliba gudaha masaajidka Ukraine oo uga dhawaajiyay gudaheeda ayuu ku sheegay inaysan ahayn marnaba wax suuragal ah, taasi uu ku tilmaamay inay tahay waqtigii rasmiga ah isla markaana sheekhan iyo culimo badan la mid ahba in la gaaray waqtigii la soo xirxiri lahaa Somaliland ay ka bilaabato sida wadamada qaar in la xirxiro dadka ugu muhiimsan caamada isla markaana ay hayeen indhaha bulshada sida Sheekh Mustafa Xaaji Ismaaciil Haaruun in gebi ahaanba la soo xiro iyo si la mid ahba si loogula xisaabtamo ficladii iyo qaladaadkii uu geystay. waa sida ay aaminsan yihiin dadyow aad u tarbiyal isla markaana ay ku qanacsan yihiin in la soo xiro oo lala xisaabtamo Sheekh Mustafa Xaaji Ismaaciil Haaruun iyo si la mid ah culimada kale ee joogta Hargeysa oo ka soo horjeeda aqoonsiga Israa'iil. haddaad Somaliland joogto waa inaad aqbashaa kaliya aqoonsiga ay heleen reer Somaliland ama yahuudda ka timaado ama cid kale ka timaado.